السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. وبرنامج كي نخرج بطنا مغرب أنسو قادن جرني عن شيء جرني أذكارون كلا أخي أوقات كلا دوان ما أنت أذكرت عن أنسو قادنين أي واحد تهي أذكرت ويسيدا intuu qofka weysaysan yani ka hor adkaartu la imaan lahaa ama wuxuu dhihi lahaa iyo sidoo kale kadib markuu weysaysto qofka wuxuu dhihi lahaa ama loo baahnaa inuu la yimaado qofka markuu intuusan weysaysan ayaa waxaa loo baahan yahay inuu la yimaado oo ku bilaabo magaca rabbi caza wajal oo dhaho bismillah maahan isla markii ficilka inuu bilaabo weysida waa inuu ku bilaabaa bismillah ilaa magaciisa weysida kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam duca ayuuna baray qofka waxa loo baahan inuu la yimaado markuu weysida dhameeyo weysidan saa ognahay waa fadli aad u weyn ay ku sugan tahay qofka waxa loo baahan weysida mar walba inuu badiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay la yuhafidul wudu illa mu'min marka iimaannimadaada inaad mu'min tahay ay cadeynaysaa mar walba qofku waxa fiican inuu weysida badiyo inuu tajdiidiyo mar walba yani uu weysaysto fiican saan ognahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis badan uu ku sheegay qofka haduu yani weysaysto dambiyaashiisa uu sameeyay dhan ayaa laga tirtirayaa subhanallah waa marka waa fursad meesha dambiyaashaada aad ku baabi'in lahayd weeyaan qofka markuu weysida dhameeyo yani wuxuu dhahayaa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والدعاء السير markaad weysaysid kadib hadaad akhrisid 8 albaabo jannada ayaa lagu furayaa meeshaad doontan aad ka galaysaa qofku waxa fiican ducadaas inuu xifdiyo markuu weysaysto yani uu ashhadu waxaan qiraya an la ilaha illa allah rabbi azza wa jal يعني إله كل إنه سنجرين إلا الله وحده كلجيسة لا شريك له شريك إنه سن لهن وأشهد وحقريا أن محمدا إنه يهي عبده أدون كيسة ورسوله رسولك وصدري إنه يهي أي قريا اللهم اجعلني إلهي إجدك من التوابين كو مغرب يعني توبت كانت مغرب كو توبت كان وجعلني إجدك سيدوك من المتطهرين كو مغرب طاهر سن إجدك qofka taas haduu dhaho oo la yimaado illa taas haduu sameeyo 8 albaabo jannada ayaa loo furaya meeshu doonuu ku galaya marka waa fursad ducadaas inaan xifdino sidoo kale marka uu weysida intuusan bilaabin uu dhaho bismillah taas aan ku dadaan baakum allah fiikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh